abwaan Axmed Salebaan Bidde ayaa si adag ugu hadlay isla markaasina baaq dheer u diray beelaha ku diriraya gobolka Togdheer waxaana hadaladiisa abwaanka kamid ahaa diraya fariin lama horaan hadii la yiraahdo waa shay lagama dhaqaaqana oo la horaynin weeye waxaanay ku tahay waxa maanta in haysta oo anigu aan arkayo dhaqankeenu diinta islaamku ku xidhiidhsan yahay ma dhaafi karo dhaqankeenu haddaba waxaan la yaabay ma nacasnima maya dadku ma wada nacasba ma waaliba maya dadku miyay wada waalanya ma kibirba maya dadku miyay wada kibreen taa kibirka waxba kaga jiro markii abaar la waayay bariyahan ee Google la badhacay deersina la badhacday ee geeriyadii arigii wax waliba dhaleen ee caanihii laga dhigay ayaa ninkii inaabtidii gurigeedii umula waxbad kula soo kala kii kalena abtigii yaa oo buka oo arag bal joogo sardaa iska jiifa ayuu xabad kula soo kala isagoo inamadiisii xabad la dayday wali adduunyada kama dhicin maanta ka horto maxamed ciise iyo habar yunis ta ka dhacday waa ceeb dhagala ma aha ceeb dhaga qabta miyaan dhulka Soomaaliland dagaal ka socon miyaan gobol dhan la oran waa la jaraya la saanood miyaan diidin Soomaaliland hadeen miyaan oran waa gobolka nagama go'o ma buu leeyahay taariikh buu leeyahay dhismo leeyahay dhalash buu leeyahay dhaqan buu leeyahay waanu dhisnay la saanood nagama go'o miyaan ku dagaalamin nusmaliyan miyaan ku dhiman xagga iyo xagga ma iyadoo dhiigu sidaa u yaal maxamed ciise iyo habar yunis kibirka xagar boodle isku haystaan muxuu taraya muxuu yahay ma dhaqmo waxaan buu leeyahay anagu dhiigina muraadu ma lihin idinka baqobay anigu ila Salebaan Bidde la yiraahdo Axmed Salebaan Maxamed ila Salebaan Bidde la yiraahdo dhirta anoo yar baan qiinoon la geyn jiray oo geelaan ku raaci jiray naylahan ku raaci jiray geed iyo geed baan u aqaan abtiyaaladana qof iyo qof baan u aqaan tolkayna qof iyo qof baan u aqaan wallahi oo billahi oo tallaahi waa ku ceebowdeen maxamed ciise habar yunis ayadoo Soomaaliland dagaal ka socdo oo tadhacday la og yahay maanta aad dagaalanteen tagwa dagaalamay maanta kale meel dagaalama war wala jawaabay sidaas oo kale loo jawaabo waxaan leeyahay waxaan iraahdo halka ka iraahdo garan maayo caaqil diide wadaad diide madaxweyne diide wadaad diide baarlamaan diide goorti diide abwaan diide sheekh Shariif diide dhaar baa maraysan haddana sidanaadkiin waxa idinka dhaxaya soo ma haliin iyo gugu daado caani oo isla jirdeen ma sheegi kartaan wax halka yaala oo labada reer ku kala maarmaan oo lagu kala raro oo aan ku kala maadiyaan oo ku kala dhintaan berbera maayar ku xigeenkeedu waa habar yunis geelaha daaqayana maxamed ciise leh bal marka ilaa berbera haysataan iyo ilaa wardheer agteeda haysataan waxa saaka isku haystaan wadankiina dagaal ka socdo maxay tahay war dib isugu noqdo war diinta ku noqdo war kibirka iska daaya war geela dhalay iska daaya war ehelka naxaysa iska daaya war waxaan suuran iska daaya wixii aan socon doonin markaynu saada ma joogno saakayaan lagu waalan niga yiri baan anigu ah Soomaaliya waa isan qaano markaan joogno sabanaba sahwiga waa iska leenayo sida sooraha booda ama saabunta tayda xumbaysa sahwiga iska leenayo Soomaaliya waa isna qaane markaynu saada ma joogno wixii aan socon doonin saakayaan lagu waalan warma marka boqolna la dilo ama 300 nin sidaas aanoo kale ayaa oranayna hadhowto ahiya dad baa naga dhamaaday waanu istilay laasna way ahayd tallaahi waxay ku tari calaa muxuu ku tari wala heshiin doona dambaa loo heshiin doona bal waayahay dadkan iyo waqtigan maxaa lagu xisaabinaya waxaan kaga hadhaya halka dadweyne kale la hadlaa damac yeeshaan buu maxamed ciise iyo habar yunis isku dagaalamaan oo isku wada dhalay oo meel kale tagin anigu 8 jir baan ku dhawaay 3-5 horteedna abtiya ilmaayar baan ahay iyo awow baan ahay iyo nabta xagee loo kala soocaya geel baa la kala soocaa dad lama kala sooci karo waxaan leeyahay war shahaata ilaahay ka baqa
محمد عيسى حال هبحيو هبر يوسف حال هبحسو صومالي لين هسيين يا سيد الله سامحنا وما يضغط ما maxaa kale maxamed ciise iyo habar yoris baa saa kaala dhalay isku dhaxaysta oo ilaahay diiday oo culimadii diiday oo diintii diiday oo wax walba diiday bal qiimaha ku diideen nooga soo jawaaba abwaankii baan anigu waan idin sugaynaa